بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سود وهذا شرفت قيمها له ما شاء الله تبارك الله أرنتي أن ماركت ولا ليال هرتو حدين قعد سنة يا channel ka subscribe share aan comment ii saara waxaan idin ka codsanayaa arrintii weli lama dhigin wadaadadii waa isku khilaafsan yihiin gabadhii yareedo oo hargeysa ra'yigeeda soo gudbisay waxaan ku lama dhigin anigu waxaan u baxshay gabadhaas yartaa alla ka hadli gabadhii alla ka hadliyaheed waxaan ku arrinteedii lama dhigin qolox weli waa laga qolox siina waxay ka hadlaan may waaye may ummadda masaakiinta wuxuu qabtaan may ummadda abaaruhu ku dhaceen maartay lacag wa ururiyaan allah wadaadadii maxay maaragtay gabara hadashay gabdhihii waxay arkeen inay ka xoroobayaan gabdhihii u xaraysnaa ayaa waxay arkeen inay ka xoroobayaan marka culimo badan ilaahay ka soo baxsho xaqa ilaahay tusay oo xaqi bayaaninaysa kuwana waa qarinayeen fiijiya cayriya la ilaha fiijiya cayriya marka tira reero dhan ayaa duminaysaa شيخ عمر وشيخ وينه وأمد شيخ ودي ياس وشيخ النجي وشيخ الصوماليات لكن واحد قالت شيخ عمر وابن آدم وقلدمي كرا شيخ مصطفى وقلدمي كرا شيخ ديرر وقلدمي كرا شيخ أحمد ياري وقلدمي كرا شيخ أحمد ظاهر وقلدمي كرا عد كستا وابن آدم وقلدمي كرتا هدي أيجو ولا كعي كتابنا تميل أصلا صارتين إيه دقن كي صوماليات أو شهلي جاه أي رمان دتك إني مدح وقرا عندهن وحس دقن أملي هنا أيجا يطالع لكن إلهي وحصا صاري waxa la xaq hadii afka laga tolo feerahu ka dilaacaba Soomaalidu tirada waxa weeye xaq waa xaq afartii madhabo haday isku raacday gabadha maxaa tira ciidan ninku kuma qasbi karo hooyaday aabahay kula soo dejinaya kuma u qasbi karo xaqayna u leedahay gabadhu inay guri degto oo guri ninka uu u dhiso ama uu u kireeyo xaq bay u leedahay waa xaq ay ninka ku leedahay kamid tahay haday tahay madaa ku qasbahaya gabadhu ma muslim baa ma soo gaalo bal dhageysalkan midda hore asaladii diinta ayadoo aan maalintii ma ya shiiqan waa diban hadda waa nooshidaha suga shiiqan kan ila dhageyso waxaan kuu sheegayaa ma taqaanaa maxaa tirahdayay culummada tiifiyadeena ayaa wuxuu qabtay doodda wuxuu ka qabanayaa arrin la yaab leh in lagaba doodo wuxuu ka qabanayaa guriga cusub ee inan iyo inantu isku guursadeen hooyada inanka iyo hooyada inantu ma ku noolaanayaan yaa ogolaashiyaa looga qaadaya inay ku noolaadaan masaxba ma qalabba ma gaalanahay markaan ka doodayno hooyo iyo aabbo lama soo dhaweyn karee bannaanka hala geeyo ma gaalanahay muslim baan nahay meesha illa weydiiyo waay telefishinka waxaa keenay ummadda dhex dhigayna waxaa loo baahan in la yidhaahdo war ma gaalaad doodsiinaysaan mise muslim baad doodsiinaysaan marka taa haddaanu aniga wiilkiiga maarmayn gabadha hadalkeeda war hore u dhagaysateen war walaalayaalow yaa yiri hooyay aabba lama keeni karo bannaankaas maaragtay hala fiijiyey ha laga dhaco iyo meelaha hala dejiyo gabadhii waxay tiri wiilka waana sax gabadha markay ninka iyo naagta isguursadaan guriga gabadha ayadaa ka mas-uula nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu qira wiilku mas-uuliyadda kore ayuu leeyahay gabadha guriga ka mas-uul maaha gabadha yaas ayadaa guriga ka mas-uula guriga ayadaa ka mas-uula gabadha madaa ku qabsanayo shiiqaana marka noo kala caddaynaa dhegeyso ninku gabadhiisa ma ku khasbi karaa inuu reerihiisa la dejiyo mise arrintaas uma bannaana masaladaasaan ka hadlaynaa kow culimada afarta madhabadood waxay isku waafaqsan yihiin gabadhu inay xaq u leedahay guri u gaar ah oo mustaqil ah oo madax bannaan xaq bay u leedahay labo ninku kuma khasbi karo gabadha inuu qaraabadiisa iyo ehelkiisa la dejiyo iyadoo ay ku jiraan qaraabadiisa ehelkiisa uguna horeeyaan aabihii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo caruuru isagu naag kale ka dhalay kuma qasbi karo uma bannaana inuu ku khasbo ilmaha kale ay ka dhaleen min xuquuqihaa bay ka mid tahay xuquuqdeeda waxaa ugu horeeya meher fiiri gabdhaha waxbaan u sheegayaa ninka ku shukaansanaya ama ku guursanaya intuusaba meherkiisu kugu dhicin abow ilmamaa soo dhasha ilmahaas inaadan ii keenin ii saxiix dheh ma korinaayo dheh maxaa ilma naag kala dhashayoo hadhow eedadana saa noo geli jirta ku dhahay maxaa kuu keenahay saxiix ka qaad yah kuma qasbi kara xaqna uma owleh inuu kula dejiyo ilmaha xaqaaga ayay ka mid ta gabaray ninka ilmihiisii bay nacday now markuu ku shukaansanayaba waxaad tirahdaa hooyada iyo aabbaha ilma deji kartid ilama deji kartid maxaad tirahdaa ilma aad dhashay iyo kuwaad adeer u tahay
cid aad ila dejinaysa ma jirto ilaa anigu waa inaan ogolaado ma garatay adigana xaggaaga kuwa ka socda haddaad rabtid inaad kula soo degaan asagu waa inuu ogolaado waa xaqa uu kugu leeyahay kamid ta gabaray ma garatay marka gabdhaha ilmaha tirada badan oo ninka uu dhalay lasoo dul dhoobaayo oo isha ka marmara waayeyo yaa nimanku naagahoodiiba qabi lahaayeen because nin kasta intuu 5 cunug iyo 6 cunug gabar uga dhaqaaqo ayuu ilmihii ka soo qaadanaya isina ayaa ilmihayga barta dhiganaya ama biilkii uga goosanaya oo kaxayna tu kale u geynaya gabar kasta oo la guursanayo maanta laga bilaabo waxaad tiradaa markuu ku shukaansanayo uu ku yidhaa waa ku rabaa ilmama kuu joogan haa qor saxiix inaadan ilmahaaga aadan ii keeni karin halkaa ku qor haddii kale aan saas ku kala tegayna aniga adug ma garat waana sidaa tiraadaan ayaa iskala hadla nimanka waxaa kale ood iska ilaalisaan gabdhaha maadaama ninka waajib ay ku tahay inuu guri ama kuu gado ama uu kuu dhiso inuu hotel kugu arooso oo kugu yiraahdo halkaan ba ku aqal galaynaa markaan aqal galno oo Yurub iyo Ameerika ku noqdo yaa waliba gabdhaha Soomaaliya ee Kenya waxa loogu baaba'sado hadda waa noqonayaa ma kaligaaba adoo guri sii deganaanaysa naayaa nina ku qaba waa inuu guri kuu kireeyo guri 2 qol ah waa inuu kuu kireeyo qolna fadhiga uu ku yahay martida kuu soo fariisato qolna adigu aad seexatid waa inuu kuu kireeyo ama Yurub ama Afrika joog ama Soomaaliya joog ama Kenya joog guur holiday guurka la yiraahdo oo ninku intuu 2 bilood ku soo haysto ama bil ku soo haysto oo ayr Yurub iyo Ameerika ku soo noqonayo oo telefoonka ka bedelanaya ama oo maaragtay oo ku soo furayo nacas yahay marka u horeydaba waxaad tiraahdaa no aabaha hadduu ku weydiisto ninkan aaba aad siinaysid hadduu rabo inuu maaragtay uu ila kulmo waa inuu guri uu ku gado ama uu ku kireeyo number 1 number 2 waa inuu biilkaaga oo meel saaro intuusan bixin ugu yaraan waa inuu 3 bilood biilka ku hormariyo meherkaaga waa inuu ku siiyo ama haaf ku siiyo diinta islaamka waxa qabta intuu sokorkaaga taabanin inuu haaf ku siiyo waa inuusan hotel kugu guursan naba waan ku soo dacweynayaa line baan ku xareynayaa dhog waxaas waa beenta ay ku baxsadaan gurigeyga anoo degan waxaad tiraahdaa halkaas laakiin hotelka markuu telefoonka aadan sida qolada hotelkuna ku dhahaan naana dhaaf agaad aadeen cas yahay markay ugu yaraato gurigii aad ka goglato ayaad iibsanaysaa marka iska ilaaliya gabdhow hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa gabdhihiina u sheega waxaad tiraahdaa hooyo hotel ninkuyo kugu guursan guri ha kuu kireeyo marka caqdigu dhaco laazimaya meher marasho masruuf oo cunto iyo cabid isugu jira iyo maskan meelay degto maskankaas waa inuu noqdaa maskanun mustaqilun lahaa walizawjiha iyada iyo ninkeeda mid u gaara masaladaas wadaadadu kuma baraarugsanayn markay ka hadlayeen waxaa ila soo xiriiray rag badan oo wadaada ah oo markii hore oo aan su-aal la i weydiiyey aan ka hadlay anoo aan gabadhaba daawan isoo wacay oo igu yiri masaladan waa ku degdegtay gabadha sodooda gabadhu uma diidi karto guriga inay timaado birul waalidayn baa jira wax la yiraahdo birul waalidayn waa xuquuq gaara حق الزوجين وحقوق جارة ولا يختلط الحقوق بعضها ببعض حقوق ذا ليس مدح قليو لما أقولها اعطي كل ذي حق حقه شخصي كستا أو حق كله حق يسسي خلد أها الدلة أي ودادو دليشدين وحكمدها أنت ومالك لأبيك نعم أديك إيا مالك أبها وعربوك إذا كسمي كرا وإذا كنت تصرفي كرا لكن أبها iyo hooyada gabadhan xaqaas kuma laha adig kugu leeyihiin adiguna gabadhan xaqaas kuma lihid sida ay 4 madhabadood sheegeen inaa u khasabtid inay ogolaatay inay qasabka waxaa laga wadaa gabadh isa ugu qalqaalinaysa iyadoo kaa xishoonaysa laakiin aan rabin oo qalbiga aan ka rabin inay ku tiraado okay taas waa qasabay ka mid tahay inaad ku qasabtay ku sanduleydininow xaq uma adleeto hooyaday ma kula soo dejina hooyada guriga waa gurig weyne 10 qol waaye qolkaas iska degaysaa no xaq uma lihid xaqeeda waaye gabadha waxay la mid tahay adoo dahabkii aad u gaday yiraahda dahabkan anaa maaragtay maxad anaa kula lahoo kale ayay la mid tahay gabadhu xaq ayay u leedahay inaad guri aad dejidid marka waa inaad ka degtoonaataan Soomaaliyeed yaa culumadan digdiglaho kale ordaydana gabdhaha casar iyo cisho la dilahayo oo la kufsanhayo ha ka hadlaan xaqoodan ha soo saaraan taas ha ka muxaadareeyaan ha u sheegaan nimanka ay u muxaadareeyayaan ama ay jimcaha u jeedinayaan inay kala hadlaan oo dhahaan gabdhaha maxaad u kufsanaysan ninka gabadha kufsanahaya waxaa dhalay aabbaa dhalay walaalow leeyahay adeerow leeyahay ma ay soo qabtaan oo maaragta tiirka soo taagaan si ummadda u kala badbaado ilaahay ha laga cabsado ittaqillah Soomaaliyeed
xaqu waa cad yahay xaqa in la qariyo maahan culummada xaqa qarinaysoy alla ilaah waa idin dhammaatay waxa iyo inaysan fahmin lama yaqaanin laa yufaquhu fi ddiin qofku waxaa la yidhi culummada soomaali say u badan yihiin waxay dhex galeen adduunyo qofku markuu adduunya dhex galan waxaa dhici karta xaaraantu inuu yara ay soo gasho oo xaaraan uu dhidhansho xaaraanta qofka duu dhidhanshana waxaa la yidhi ma fahmo diinta ma fahmo ma garat marka ganacsi waa samay kartiin laakiin dhowrsanaada ilaahay ka cabsada xaaraanta iska ilaalsha xaqana cadday nin iyo naag ilaahay baa samaystay aadan iyo xaawo ilaahay baa samaystay adiga shaqadaa maahan adiga diintana u khidmayhaas odu maadan dhihin diintana ummadda usoo bartay soomaadan dhihin waxa weeye sida ay tahay u cadday afartii madhaboodoo isku raacdaa lagugu yiri hagee marka adugu cilmiga ka keentay cilmiga imaam shaafici uusan haysanin cilmiga aan imaam xambal haysanin cilmiga axmed bin xambal cilmiga imaamu maalik cilmiga maxaa tirahdayay waryaa ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado waad waafaqi kartaa ayagu way gafi karaan waa bini aadan laakiin haddana daliil baa lagaaga baahan yahay wuxuu kugu yiri ninka xaqa ay ku leeyihiin aabihiis iyo hooyadiis gabadhan kuma ile gabadhan oo gabar islaameed ma garata marka xaqa ha isku dhex walaaqnina saa iskugu dhex qasqasnina qolal arka xaqeeda siiya gabadhaas yartaana waa alla ka hadli anigu waxaan u baxshay alla ka hadliyey ilaahay baa ka hadliyey xaq allow feere ka dilaac afka haddii xaq laga xiro feerahu ka dilaaca marka ilaahay ha laga cabsado waxa aad la rabo inaad ka hadashaan ka hadla abaaraha ka hadla dadka masaakiinta guryaha loo dhiso ifri jimco kasta wadaadada fiiri jimco kasta hadduu yidhaahdo qof walba oo albaabkaas ka soo gelayo ilaahay dartiis 20 senti ama 25 senti u bixi waxaa dhici karta 200 oo qofood inay timaado 25 senti waxa weeye waa $1 nuskiis halka $1 oo 4 meel loo qaybshay meel ka mid ah qof walbo كان أودي كنا سامهن إلهه 10 سنتي ما كان قف له أركو واحد أودي كرت صدقي كوتاي لعقت استلا أروش أن إفري 6 مانتس لحدي بلاد بقى ما صدق دي بلاد بمر وإن مساكين تقول يلوغو دسو ما يقرر يقول يقول دسي كرتاش معكسته دتك تكن هاي dad baa laga yaabaa $100 ba inay ku ridaan ba ma garat laakiin dad daacad ah oo xalaal quudasho ah lacagtiini waa inta jimcii hore intaas soo aruurtay walaalayaalow haddana ku rida markay ku ridaan laba jimca intaana aruurtay walaalayaalow ku rida hadhow bisha u sheego dadkii oo uu yiraahdo okay dadka masaakiinta ayaa guri ugu dhisayna meeqa guri dhisi kartaa okay abaaraa jira shaqo abuur dadkii shaqo abuur u sameyn kara hooyooyinka miiska qalalan ag fadhiya ayaa shaqo abuur ugu sameynana $500 hooyo kastaba $1,000 qaado ku ballaari businesska wiilasha sidoo kale bajaaj ugu gad baabuur ugu gad ma garata hooyooyinka qaadka gadaaya maxaa tira hooyoy wax ka xalaalsan shaqo abuuran ku siinaynaa waatan ku shaqayso nimanka naagaha kufsanhaya inuu ka hadlo oo ka muxaadaray oo yiraahdo waa xaraam aabba kastoo wiilkaaga qabo walaal kastoo walaalkaa kaa yar qabo gabdhaha in la kufsado waa xaaraan fasahaadul arday ka mid ardada la fasahaadshana ilaahay ba maarta looga dheeraanaya war ma waxa ka hadashaan aad weydeen gabadhii wax xaqa ka hadashay degdeg saayba naagu u hadli kartaaba wariya naagi way ilbixeen caalamka culimada joogtaana lala qabsaday adduunkii maanta social media u noqday adinkan adduunka la soconin adinka adduunka ka dhaga xiran nimanka Soomaaliyeed oo waliba culimada adduunka ka dhaga xiran tihiin dadku media ay culimada ka dhageystaan carab baa la dhageysan Yurubiyaana la dhageysan Amerikaan baa la dhageysan muslimiin ah oo saadiinta u kala dhigdhigay Imaam Malik wadaadka la yiraahdo waad aragtay ya saadiinta u kala dhigdhigay ma sha Allah tabarakallah ma garat wariya xaqa cadeeya rag iyo dumar ha kala xigsan dadka Ilaahay dhaqan baa la hajirna dhaqanka la hajirta muxuu waa laga yimid dhaqanka la hajirta maanta la jooga yesterday way tagtay past president baa la joogaa past ummadda ha u celin waxay tiri islaantii magaal mi ahayd ilaahay u naxariistay heesti ii sheeg dadka soo baraarugay yaa doqon yahuudib ha u celin may ahayd heestaasaa jirtay marka walaalayaal ilaahay ha laga cabsado dumarka ayaguna degdeg soddoosa war hadalka hadduu laba yahay yaa hal hadduu iyo laba lagama dhigo hadalka sida uu yahana u qaata dadkana u cudurdaara gabadhan su'aala la weydiiyey ra'yigeeda ka hadash laakiin gabadhii ha la fiijiyo yaantaa la guursanin yay guri soo gelin baba nahoysa dohey waad og tahay
guryahaas waxaad ka samaynaysid nahoy sodohooyinkoo idab yeesha anigu hadda ka horna video aniga uga sheekeeyey sodohay ha ku fududaan dadka islaameed guryahooda wiilka waa dhasha keligaa maadan dhalin wiilka haddaad dhasha wiilka ma ahan maaragtay maxaad tirahdayay xaquuq baad ku leedahay xaqaaga ilaahay ha kaa siiyo ilaahayna ha naga wada siiyo xaquuqda aan ku leenahay laakiin ma ahan inaad gabar islaameed xaqeeda aad ku qabsatid adiguba sodoh ma ogolid gabadha islaanta wiilka dhashay aadba sodoh ma ogolid marka maxaa iskugu dhadhejinaya gabadha islaameed aad iyo aad baa u mahadsantihiin jazaaka allahu khayr waxaan idinka codsanayaa channelka subscribe share and comment xaqa ha la caddeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu